bishan toddobaad ee Agoosto taariikh 1 ayaa waxaa lagu yaqiinay inay tahay maalin loo dabaaldego naasnuujinta ee caalamka idil. Gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayaa dadka aad ugu dabaaldegayaan, taasoo sababtay in dabaaldega bisha koowaad oo laga soo hormariyo muddo 4 beri ka hor. Maanta ayaa laga dhigay maalintaasi ee naasnuujinta khaaska ah ee caalamka. Maanta ay ku beegan tahay 26 Agoosto ama Luulyo ayaa waxay xerooyinkan Dadaab ugu dabaaldegayaan caalamka idil maalinta naasnuujinta caalamka. Dadyoga ku dhaqan xerooyinkan Dadaab iyo nawaaxigiisa iskugu jira dadka qaxootiga iyo Kenyaanka ayaa maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta khaaska ah haweenka naasnuujinta caalamka. Waxay dadka aad u dhageysanayaan idaacadaha iyo TV-yada ayagoo shucuurtooda ka muujinayaan maalintan ay soo dhaweynayaan. Haddaba dadka ayaa waxay isweydiinayaan maxaa looga dhigay 26 July maalinta naasnuujinta carruurta. Waxaan wareysanay mid ka mid ah haweenka ee shucuurtooda soo muujiya una soo banaan baxay maanta oo kale in ay shucuurtooda muujiyaan. Magacayga waa Aamina Cali oo ka soo hadlaysa xerada Dadaab qaasatan Xaqdheere. Hadda fikirkeyga halkan ka dhiibto waxa weeye maanta oo noo ah maalin weyn qaas u ah haweenka oo naasnuujinta carruurta. Run ahaantii faa'iidooyin badan ayaa ugu jira carruurteena anaga inaan naasnuujino ilaa 6 bilood markay ugu yar tahay, waayo wuxuu ka helayaa caafimaad iyo tayo awood ayuu ka helayaa. Balse haweenka ayaa waxaa moodaa inay ayagu kaliya ay nuujiyaan bilooyin, taasoo ay diidayaan inuu jirkooda gurmo, ayagoo ka hortagaya inay nusqaamaan jirkooda ama muuqaalkooda. Balse taas waa qalad, waayo cunugaaga intaa nuujiso ayaa caafimaad haysataa. Jirkaaga intuu caanaha cunugaaga siinaysa ayuu jirkaaga soo galayaa nafaqo fiican. Marka ha laga ilaaliyo, hana la joojiyo carruurta ayagoo yar laga goynaya naashka. Midda labaad, dadka kulli waxaa ugu baaqayaa qaxootiga iyo kuwa deegaankaba inay carruurta run ahaantii ay siiyaan naaska ayna ka joojiyaan ayagoo yar ay siinayaan caana booraha ama caanaha loo yaqaano kuwa baakadka, waayo waxaa ka caafimaad badan oo ka nafaqo badan midka anaga jirkeena Ilaahay ugu soo saaraya ayaa aga fiican midka caanaha ay suuqa ka soo gadanayaan. Maalinta naasnuujinta ee caalamka ayaa waxaa ku beegneed taariikh 1 Agoosto. Haddaba maadaama maanta lagu soo bedelay oo ka dhiman 5 maalmood, taasoo dadka ay ku saleynayaan doorashada. Haddaba maxaad ka dhihi lahayn? Runtii maalinteena waxay ahayd maalinta taariikh 1 Agoosto. Saa tahayna maanta ayaa laga soo hormariyay sababtoo ah dowladda iyo hay'adaha qaar waxay ku mashquulsan yihiin doorashada. Saa darteed fursad looma hayo maalinta, marka isla soo galayaan in maalinta haweenka adduunka loo dabaaldego isla haddana dowladda wadankana uu doorasho galo. Marka saa darteed waan soo dhaweynaynaa maalinteena ayna gafin ama laga soo hormariyo ama hala dibdhigo. Maalinta waa maalin xaq ku leenahay inaan u dabaaldegno maalinta naasnuujinta carruurta. Taasi waxay ahayd Aamina oo ka soo hadlaysay xerada Xaqdheere oo ra'yigeedana ka dhiibatay maanta ee ku aadan tahay maalinta naasnuujinta caalamka. Waa jirta Mukhtaar Bashiir, wararka arrimaha bini'aadanimada ee xerooyinkan Dadaab.